الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. ما أنت وحين كدونا إن كابلنا أين دونا قضب لي هذا تصفية القلوب. تصفية القلوب يقلبك سيدي لو ظاهرا لها أما سيدي قلبك لو صفين لها. القلب هو مضغة. النبي صلى الله عليه وسلم قلبك وكهلي وقلبك وحاوي جدك وحاكتها لا يجري مضغة. داس هدي لها جاتيو جدك ولن وهجاجيا لكن مضغة داسو أما قلبك هدي وضيعمو أما لها جاتيو مايو جدك ولن ما هجاجيو وليجا كريم مرسو وليجا سلين مرسو وليجا كنشر قويسو lagama yaabo qalbigaasu inuu hagaago insha Allah ta'ala. waxaa la doonayaa in qalbiga la hagaajiyo. qodobka koowaad ee lagu hagaajinayo qalbiga waxa weeye kathratu dhikri. la yasalu lisanuka rabban min dhikrillah subhanahu wa ta'ala. arabkaagu yuuna ka soo yilin ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala xusamahan markastaba ilaahay carabkaaga xuso markastaba carabkaaga adkaarul masaa wa sabaax wa qiraa'atul qur'aan ad-dhikr min anwaa'ihi laymow. dhikriga hadaa la timaadid min anwaa'ihi insha Allah ta'ala qalbigaaguna wuu jilcayaa. haduu qalbiga jilcana waxa weeye qalbigu waa markuu saafi noqday. qalbigana hadaa doonaysid inaad saafi ka dhigtid cadaankiisa u daa xashida cad. hadir qofka doonaya inuu wax qoro xashi cad ayuu baabadhaa samaha. xashi waxa lagu qoray ama ay wax ku qoran yihiin xitaa hadii uu iyada helo wax kale waayo waxa weeye naftiisu kuma faraxsana inuu xashida wax lagu qoray aan cadayn inuu wax ku qoro. markasta wuxuu doonayaa xashi cad. markaana qof kastana wuxuu jecel yahay qalbi cad. qof qalbi wanaagsan oo la saaxiibo qof qalbi wanaagsan oo la shakaysto sida xaashida cad qof kasta oo u qaadanayo sidaas ayuu qalbiga wanaagsan ee wanaagsan qof kasta oo u qaadanaya. qofna kuma diidayo maxaa yeelay qalbigaagii baa cad. markaan insha Allah ta'ala qalbiga waxa ku safeen kartaa in aad dhikriga badsatid. dhikriga in ku dadaashid. fadkuruni adkurukum. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri sheega oo xusa ana idin xusay. nabiga sallallahu alayhi wasallam todobada qof ee harka harsanaya maalinta yawmal qiyaamah wuxuu ku daray warajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynahu. nin ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xusay meel illah hadhowtana ilmihiisi indhihiisi ay ilmeeyeen. markaana ilmada maxaa u keenay? ilmada waxa u keenay sababtoo ah ilaahay buu xusa. markuu ilaahay xusayna qalbigiisii uu dhaqaaqay. markuu qalbigiisii dhaqaaqayna indhihiisii ayaa ooyay. markaana sidaas ayaa la doonayaa in dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala labadiyo waxyaalaha kale ee lagu safeen karo qalbiga lagu hagaajin karo ama lagu nadiifin karo waxa weeye wattabi' سيئة الحسنة تمحها. أما وأتبع سيئة الحسنة تمحها. وحوي سيئة يحمان تكاد عضه وناك راعي. مركا وناك راعيسو وناك جاس آيات تعتيري قلبي مركي سودة كل عضو ميل مدو كل عضو wanaag aad samayso meeshii midowgeed way taatirmaysaa. meeshii midowgeed way taatirmaysaa. marka markastoo aad wanaag samayso xumaantii ka dhacday aad wanaag raaciso waxaas meesha way ka baaba'ayaan. التقوى ayaa kamid ah ina ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsatid. التقوى ها هنا أي النبي صلى الله عليه وسلم يري عبسدو
وهالكاس وقلبك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. تدبضن إلهي سبحانه وتعالى عرشي هركي سهرسنا يوم القيامة وحاكم نين أي قبر ويراتي قبر راسو قروحنا له منصب ونكسن أي كدلتي هذا تنو كجري أنو إلهي بان كعب سنة ياي فاحشو نين وجهي ميه عبسيداس حمانتي أي أديتي مركا قلبي حمان ديديه وحوي وقلبي صافي هذا دوني سيد قلبي قاعد إنا صافي كدكتي حمان توجد أو عبس ليمو وحاكم وحيابها قلبي قاعد صافي وقد يكرتي توبت كين إنا إلهي سبحانه وتعالى أتوبت كينتي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. النبي صلى الله عليه وسلم حيري قف كتوبت كيني ذنبي وسيدي قف عن ذنبي لهاي. التوبة تجب ما قبلها توبة وحي ترترتا وحي كهري وذنبي التوبة الكبائر داوي هداد كبائر سميسيد كبائرتها وحا كغبد بادي كرتا أما إساقا ترتري كرتا إنا إلهي سبحانه وتعالى وقتبت كنتو دمي كستبا إلهي سبحانه وتعالى وقتبت كنتو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أدومدي أي إلهي سبحانه وتعالى كل يهي أدومدي إلهي سبحانه وتعالى دمي كقلي إسراف في الأمور سميي إلهي هاو توبت كينان إلهي هاو توبت كينان كواسو رحمة يكقوصا لا تقنطوا من رحمة الله إلهي رحمة ديسا iyo wanaagiisa iyo dambi dhaafkiisa iyo jannadiisa haka qusanina inna allaha yaghfiru dhunuba jamii'a ilaahi subhanahu wa ta'ala dunuubta dhan ayuu dhaafa marka insha Allah ta'ala waxa kale kamid la takun zalim hanqon dadka zaalimiinta ilaahi subhanahu wa ta'ala dulmiya hanqon لأن الظلم ظلمات يوم القيامة حياة ظلمكم وظلمات وحوي مجديو ما أنت يوم القيامة وعذاب ونار وحوي قرحضو هالكا نجا كينا يوم وحوي عيدنكم مش في عسو وحوي شد سيرات واتكو دعضو ما أنت يوم القيامة مجديا كلسا مجديو كدرين هاي أيو ظلمو كينا marka hadaad doonaysid qalbigaaga inaad saafi ka dhigtid dadka dulmiye waxaan ku soo gabagabeynaynaa inaad quraanka akhrisid inaad akhrisid waa waxyaabaha ugu waaweyn oo qofku qalbigiisa saafi uu kaga dhigo waxyaabaha ugu waaweyn way saas hadii aad laasimtid quraanka inaad markastaba akhridid maalin qalbigaaga ilaahay subhanahu wa ta'ala صافي بو قريقيا مالين ديلي wax madow baa laga tatiraya maalin deeli bogo madow ama waraaqo dhan madow oo kitaabkaaga ku yaala kitaabka lagu qorayo ajarkaaga iyo xumaantaada ku yaala ayaa si laga tatiraya qalbigoodii ayaa saafiya insha Allah ta'ala al-istiqama kamid ina toosnaatid ina khayraadka faafisid ayaa kamid oo aad dacwada ka shaqeysid oo waxa wanaagsan aad faafisid inaad qofkii aad dulmi ka gashay aad ka cafis talabto waa tiraado cafi waxaan ku sameeyay taas ayaa kamid ina qalbigaaga saafi ka dhigto insha Allah ta'ala intaas ayaan ku soo koobana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.